waan la soconnaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha imtixaanaadka waxa dhacay waa nasiib darro waxaan u rajaynaynaa wasaaradda ardayda waalidiinta inay ugu dambeyn isku aragti ka noqon doonaan sidoo kale waxaan wasaaradda leeyahay waa waajib ina saaran in ardayda in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed xaaladaha adag aan dhageysano cabashadooda waliba aan u dabacsanaano la'aantood waxba ma noqon karno dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo duruuf kasta ay ku sugan yihiin waxa ina hor yaalo hawlo iyo waajibaad aad u culus waxa ina saaran mas'uuliyad guud oo sida kaliya aan uga bixi karna ay tahay wadajir wada shaqayn iyo baraarug badqaba dal walba khayraadka uu leeyahay waxa lagu gartaa tirada tayada iyo wax soo saarka da'yartiisa tayeenta iyo ka faa'iideysiga maskaxda iyo awoodda dhalinyarada waa sida kaliya ee lagu hormari karo isku filnaashana lagu gaari karo awoodda qura oo ay Soomaaliya haysato waa dhalinyarada Soomaaliyeed caqabadaha maanta ku gadaaman waxa ka weyn culayska iyo mashaqada haysto waalidiinteena iyo jiilka idinku xiga fadlan aynu u istaagno diyaarinta mustaqbal iyo taariikh bog cusub u furta Soomaaliya